بسم الله الرحمن الرحيم. Les grands arts waxa weeyaan macnaheedu abilité suprême. Soomaaliyan waxay ka dhigan tahay farsamaysan aad ugu xariif dhaafay oo gacanta u fadhido ayay ka dhigan tahay. Tusaale wuxuu yiri sa façon de tromper les gens c'est du grand art. Ninkani sidoo dadka u khayaamo oo dadka u dhaco waa si farsamaysan aad iyo aad bay gacanta ninkan ugu fadhidaa waa xariif weeyaan marka sida dadka loo dhaco aad buu yaqaanaa les grands arts saas macnaheedu ka dhiganta kelmadda kale waxa weeyaan les règles de l'art macnaheedu waxa weeyaan la manière correcte de procéder waa sida ugu fiican ugu nasaxsan ee wax loo qabto sidii xeerku wada dhigayo dhan oo la waafaqay oo sidii ugu fiican loo qabtay weeyaan bay ka dhigantay macnaheedu. Tusaale wuxuu yiri il a réparé l'installation électrique dans toutes les règles de l'art. Ninkan wuxuu hagaajiyay oo uu saxdii ka dhigay kooraanka dhigistiisii waliba sidii ugu habboonayd ugu fiicnayd ayuu u sameeyay. Les règles de l'art ayuu caadi u respecteeyay marka il a réparé wuxuu hagaajiyay l'installation électrique dhigistii kooraanka xarkaha la daadinayay buu dhigay waliba doon toutes les règles de l'art sidii ugu fiicnayd xeerkuna dhigay ayuu u sameeyay. kelmadda kale aysan waxa weeyaan tirer au clair waxa weeyaan éclaircir une affaire obscure arrin cadaynis arrintii oo midmadowga laga saaro runtii oo la soo saaro oo arrin khiyaano amba midmadow ku jiro saxdii laga dhigo oo la soo muujiyo ayay ka dhigantay tirer au clair waa banaanka soo dhigis weey. Tusaale wuxuu il faudrait waa inaa tirer cette affaire arrintan waa inaa tirer cette affaire au clair la cadeeyo arrintan waa inaa warkeega la cadeeyo oo wax alle waxa ay khabeynayso dhan banaanka la soo dhigo weeyaan buu marka tirer au clair waxa weeyaan waa cadaynis banaan soo dhigis weey. kelmadda kale waxa weeyaan les plus clairs waxay ka dhigan tahay la plus grande partie inta ugu badan ayay ka dhigan tahay. Tusaale wuxuu il passe wuxuu ku dhamaystay les plus clairs de son temps waqtigiisa inta ugu badan wuxuu ku dhamaystaa ninkani à dormir inuu hurdo waqtigii wuxuu ku dhaafay hurdo marka les plus clairs waxay ka dhigan tahay inta ugu badan la plus grande partie il passe wuxuu ku dhamaystaa les plus clairs de son temps inta ugu badan waqtigiisa à dormir hurdo. kelmadda kale shanaad aysan waxa weeyaan à ciel ouvert waxay ka dhigan tahay en plein air banaanka cad. Tusaale wuxuu yiri une piscine waa piscine à ciel ouvert baraxa ku yaala oo dushiisu ma hagoogno cidladaaba ku yaala waa cidlad meel banaan ayuu ku yaala marka à ciel ouvert meel banaan bay ka dhigantay. kelmadda kale lixaad waxa weeyaan c'est la moindre des choses waxay ka dhigan tahay c'est le minimum inta ugu yar ayay ka dhigan tahay. Tusaale wuxuu yiri pour trouver du travail si shaqo loo helo zamanka maanta aan joogno il faut avoir un diplôme wa inaad haysatid wax diploma ama shahaada c'est la moindre des choses waaba inta ugu yarba ee la isweydiiba waxa ugu yar ee la isweydiiyo waxa weeyaanba inaad horta shahaado una haysatid tay doonay ma noqotee marka la moindre des choses waxay garan tahay waa inta ugu yar. Tusaale kale wuxuu yiri appeler un chat waxay ka dhigan tahay waa appeler les choses par leur nom wax kasta magaciisa oo loogu yeero intiisa fiican oo la sheego ayay ka dhigan tahay yacni appeler un chat bisada magaciisa ha loogu yeero waxa weeyaan wax walba intiisa ha la yiraahdo magaciisana ha loogu yeero wixii fiican uu fiican yahay qofkii xunistiisa la sheegay qofkii fiican intiisa fiican baa la sheegay wixii itaalkiisa waa la sheegay wax kasta halkiisii oo wixii uu mutaystay la sheegay bay ka dhigan tahay. Tusaale wuxuu yiri l'Israël est une grande puissance régionale. Israël waa wadan weyn oo quwad leh qaaradan yaree bariga dhexe waxay tahay wadanka ugu quwadda weyn waxayna leedahay military aad u weyn. Il faut appeler un chat
bisada magaceega loogu yeeray wax walba intiisa la sheegay l'Israël est une grande puissance régionale mais son système de défense n'a pas fonctionné lors de l'attaque 7 octobre laakiinse difaaceegii iyo awoodeedii waxba way sheegi weydii markii la soo weeraray 7 october maca awoodeedii waxay hay'adoo dhan waxba way qaban weyday wax kastaba intiisa waa la sheegay Israa'iil inkastay quwad leedahay haddana maalinta way fashilmatay marka il faut appeler un chat wax kasta intiisa la sheegay bay ka dhigantay kelmadda kale sideed waxa weeyaan envers et contre tous envers et contre tous waxay ka dhigan tahay malgré tous tusaale wuxuu yiri je soutiendrai cette opinion envers et contre tous waan taageeri oo waan horjoogsani waan garab istaagi cette opinion fikirkan waan taageeri envers et contre tous wixii dooniba ha dhaco wixii dooni ha igu qaadato waan taageerayaa kelmadda kale sagaalaad waxa weeyaan à l'estime waxay ka dhigan tahay on estime approximativement qiyaas ahaan bay ka dhigan tahay on estime qiyaas ahaan tusaale wuxuu yiri à l'estime qiyaas ahaan il vous en faut waxaad u baahan tahay 5 meter 5 meter baa u baahan tahay qof dhar iibsanaya amba wax meter uu goosanayo kale ay tahay sida godol amba mashamac amba wax aan kaasa waxa laga yiri marka à l'estime qiyaas ahaan il vous en faut waxaad u baahan tahay 5 meter 5 meter baa kugu filan kelmadan kale tobnaad waxa weeyaan former un état dans l'état waxay ka dhigan tahay waa dawlad ku dhex jirta waa dawlad kalena garab socoto sidii wax weeyaan baa laga yiri d'un parti waa qolo d'un groupement amba koox qui acquiert yeeshay une certaine autonomie madax banaani oo san daanata dawlad kale dhexdeedii ay qolo kale madax banaani awood kala yeelatay oo wadanada caalamka qaar saaya jira tusaale wuxuu yiri doon saqtan bay wadanada caalamka qaar kamid ah laqmay ciidanku doon saqtan bay wadana qaarkood laqmay ciidanku fooqma waxa weeyaan aaneta dawladda waa dawlad ku dhex jirta wadanada Afrikada way jirtaa sida Burkina Faso wadana badan oo saaya wadankii dhanaay dawlad iska lahaa waxa kale oo jirta jabhad kale ama dawlad kale oo go'day oo army kale oo go'ay iyaguna chef bas ka yeesheen magaalooyin dhan bay xukumaan dhaqaalihii bay iska haystaan iyaga ka taliya dawladdiina dhinacan bay ka jirtaa sida ma aragtaan Haiti oo kale wadanka Haiti dawladdii way jirtaa army-gu wuu jiraa booliisku wuu jiraa haddana ragga gistara oo jabhada oo dadka ma aragtaan dhaca ayaa magaalooyin dhan xukumaba magaalooyin dhan bay xukumaan iyaga ka taliya lagama daba hadlo waa dawlad ku dhex jirta bay ka dhigan tahay marka saas baladhada kelmadda koowaad waxa weeyaan atombo rouleau waxay ka dhigan tahay avec une telle vitesse qu'on risque un accident mortel xawli ku socda bay ka dhigan tahay u ordaya tusaale wuxuu il rouleau wuxuu orday ku socday baabuurkani atombo rouleau ayuu ku socday kelmadda kale la waxa weeyaan être mieux comme une tombe waa qof aamusan oo dama sida qabriga oo kale qabuuraha wax shanqara iyo wax hadal lagama maqlo dam sidaas oo kale iyo loo isticmaalay macnaheedu waxa weeyaan waxa lagu macneeyay garder obstinément le silence waa qof aamusan dam oo ugu talagalay ama observer un mutisme absolu maba hadlayo tusaale wuxuu yiri sid antividi ninkani mieux comme une tombe waa sida qabriga isla aamusaba kalmaba hadlama jawaabo waxba ma dhaabo aamusan saabay ka dhigan tahay kelmadda kale tobnaad waxa weeyaan coup de tonnerre waxay ka dhigan tahay événement brutal et imprévu waa arin ku soo booda oo naxdina oo qofka ku noqota waran oo kale weeyaan tusaale wuxuu yiri la mort de sa mère dhimashada hooyadeed ay ka dhimatay vie pour elle waxay ku noqotay gabadhan un coup de tonnerre arin lama filaana oo waran oo kale bay ku noqotay kelmadda kale waxa weeyaan a tort ou a raison waxay ka dhigan tahay amba gardarnow amba laga gardarnaado yacni a tort amba khaldanow ou a raison amba xaq ku joog ma aragtaan wax macna male tusaale wuxuu yiri marka yacni waxa lagu macneeyay waa soo motif waxaan hadal lahaynba oo dood ay ka imanayeen weyn oo kelka soo la réalité tusaale wuxuu yiri a tort ou a raison amba khaldanaado amba saxnaade il considère wuxuu isleeyahay oo iska dhaadhiciyay kila ay tilise ina la khiyaamay don le partage qaybsiga dhaxalka oo kale marka la kala qaybsanayo
wuxuu isleeyahay ninkani kala qaybsataanka iyo dhaxal wixii la kala soormayay waa laygu khiyaamay marka amba ha ku joogo amba ha ku joogi waaye saabaa ninkan ka dhaadhacsan aatooq amba ha khaldanaado ou a raison amba ha saxsanaadee il considère wuxuu ka dhaadhacsan oo isleeyahay qu'il a été lésé inaa la khiyaamay dans les partages soorkii iyo kala qaybsashadii waa lagu khiyaamay buu isleeyahay kelmadan kale u dambaysa waxa weeyaan aatooq et à travers waxay ka dhigan tahay meelba loo dayn sidaan un macnaheedu waxa weeyaan sans raison ni justesse tusaale wuxuu yidhi il dépense son argent lacagtiisa wuxuu ku bixiyaa ninkani aatooq et à travers saab u daadinaya meelba uma dayeeba il dépense wuxuu bixinaya son argent lacagtiisa aatooq et à travers sida meelba uma eegay tusaale kale wuxuu yidhi elle parle way iska hadashaa aatooq et à travers meel bay hadalkeegu dayn bay iska hadlaysaa saabay ka dhigan tahay